qowmiyad kasta oo ku nool adduunka waxa ay leedahay dhaqan iyadoo u gaar ah dadka Soomaaliyeedna waxa ay ka mid yihiin bulshada dunida ee dhaqamada soo jireenka ah leh iyadoo ay jiraan maalmo gaar ah oo loo asteeyo xuska dhaqanka ummadda Soomaaliyeed hab nololeedka iyo nidaamka dhaqanka ee dadka Soomaaliyeed waxa ka mid ah luqadda cuntada suugaanta fanka iyo farshaxanka kuwaasi oo aad loogu garan og yahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool bariga Afrika haddaba iyadoo laga duulayo soo nooleynta dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dalxiiska dawladda Puntland garow ku qabatay munaasabad lagu xusayo sanadkii afraad oo xiriir ah toddobaadka dhaqanka Puntland waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka warfaafinta dawladda Puntland wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xubno ka socday golaha wakiilada abwaano dhalinyaro iyo marti sharaf kale wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska dawladda Puntland Ali Axmed Sabarey oo si rasmi ah u furay xuska toddobaadka dhaqanka ee Puntland ayaa ka warbixiyay ujeedka ay wasaaraddu ka leedahay xuska toddobaadka dhaqanka Soomaaliyeed waxa weeye in qaab nololeedkeen uusan lumin oo aynu hayno hidihiini iyo wixii aynu maxay haytay caadada u lahayn inuusan inaga lumin jiilkeena maxay haytay cusubna aynu barno dhalinyarada ah kuweena soo koriyana aynu gudbino inuusan inaga lumin qaab nololeedkeeni iyo qaabkii aynu u wada hadli jiray iyo qaabkeenu u noolayn iyo qaabkeenu maxay haytay hidaha aynu waxaasoo dhan oo isxambaarsan ama alaab ha noqoto ama ciyaar ha noqoto ama maxay tahay gabay ha noqoto ama maxay tahay dhaanta ha noqoto in jiilba jiilka ka dambeeyo uu baro qaabkii sida uu ahaa barnaamijku waa joogto sanad walba waa hal mar bishan oo kale ayaa la qabtaa bartamaheeda marka barnaamijku waa joogto sanad walba insha Allah sanad walba sanad ka dambeeyo waxaan rabnaa inaanu ka sii kordhino oo uusan habeen kaliya noqonin waxaan ku tala jirnaa sanadka dambe in meelo badan aan ku qabanno oo magaalooyin tagno tuulooyinkeena oo miyiga ku qabanno oo dad badan oo aad u yaqaan waxa kan inay ka soo qayb galaan oo aynu ka sii barano xitaa dadkeena hadda waxaan yaqaano qaar waxba ka maqan iyana dadkii ku soo kordhin lahaa ama xusuusin lahaa inaynu maxay hayto iyana u yeerno meelaha joogaan aanu ku tagno waa barnaamij safar dheer ayay u soo galeen si ay uga qayb galaan xuska toddobaadka dhaqanka ee Puntland abwaano iyo xubno kale oo kamid ah bahda dhaqanka waxa kamid ahaa bahda dhaqanka ee munaasabada awgeed safar u soo galay abwaan jaamac kadiyo oo kamid ah abwaanada waaweyn ee Soomaalida gaar ahaan abwaanada reer Puntland inta badan dadka Soomaaliyeed asal ahaan waa xoolo dhaqato reer miyi ah haddase dad badani waxay noqdeen reer magaal taasi ayayna dadka qaar sabab uga dhigeen inuu dhaqankii hoos u dhac ku yimaado haddaba abwaan jaamac kadiye ayaa nooga warramay dhaqankii Soomaalidii hore iyo Soomaalida maanta saddex nololood bay lahayd nololi waxay ahayd nolosha magaalada nololna waxay nolosha miyiga nololna waxay nolosha baadiyaha iyo beeraha saddexdaa nololood bay ku kala noolayd noloshii beeruhu waa caadigeediyo sideeda bay u socotaa noloshii magaaladuna way sii dallacdayba iyadu noloshii hadda liidata ee dhaqanku ka liito waxa weeye baadiya waxa weeye marka inta kale aad damba kama lihid magaalada markaad joogto dhaqan eegi maysid doondoonina maysid una boholyoobi maysid magaalada markaad joogto laakiin dhaqanka marka aad doonaysa u boholyoobaysa doondoonaysaa waa markaad baadiyaha markaad tagto waxaad tegaysaa aqal haddii xitaa raradii kebed lamaba sameeyo abjadkii awrkii adkaa lama sameeyo hararadii wax yar baa la sameeya raradii la odhan jiray saddexlaha iyo shanlaha iyo afarlaha la odhan jiray wax yar farakutiris baa la sameeyaa aloolo xoogaa duurkii baaba la dhameeyo aloolada wax yar baa la sameeyaa marka dhaqankii xagga baadiyuhu ku liitaa dumarka Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin lafdhabarta dhaqanka Soomaaliyeed Xalimo Cali Warsame oo kamid ah qabanqaabiyaasha xafladda xuska ayaa sheegtay in looga baahan yahay inay u soo noqdaan dhaqankooda Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed waxaan u dirayaa inay ilaahay ka baqaan dadkooda iyo dalkooda u soo jeestaan bacda iyo dhibaatada ka joojiyaan nabad guur bay dhulkeenu ku tahay nabad guur bay dhasheenu ku tahay dhaqan xumay inoo keentay awlaadeeni baan maskax lahayn aqli lahayn awood lahayn itaal lahayn waxa keenaya waa cinjirka iyo balaastiga amal qaaji warbaahinta dawladda garow